soo dhawaada. Okay, soo dhawaada asxaabta qaaliga ah. aad baan idin salaamayaa. maanta magaalada Minneapolis waxaa ka dhacay la tooreeyay lala dhacay imaamkii masaajidka Khalid bin Walid ee magaalada Minneapolis. marka insha Allah soo dhawaada. Okay, بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أنت مقعي موقع تقالنا بالشعب الصومالي هذا ولكن عبد الحكيم عثمان نور أو مقعي الشيخ الصومالي حتى شيخ مينيابوليس مينيسوتا. أنت تقالنا أنت نقول أنت يجعل أنت النعب أنت يتغير أنت يسور جدا. لما أنت واحد يقول السلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta magaalada Minneapolis salaadii duhur ka hor waxaa ka dhacday arrin aad iyo aad argagax u ah oo Soomaalida gobolka Minnesota ay aad uga naxeen. arrintu waxay dhacday salaadii duhur ka hor imaamkii masaajidkaas ayaa tooray in la dhacay. ilaa iyo waqtigaas ilaa iyo haddeer waxaan ku jiray baaritaan ah sababta keentay dilkaas imaamka loo geystay iyo de Soomaali waynu wada nahay oo kulligan Soomaali baynu wada nahay laakiin de qabiilku waa waxaynu tahay inaynu isku aqoonsano iyo imaamka qoladiisa iyo ninka wax dilay qoladiisa. sababtan taa u leeyahay waxa weeyaan aan rabay aan arrinta u baaray oo maanta oo dhan aan time-ka u galiyay xogta rasmiga ah aan idinku soo ururinayay. masaajidada saad ogtihiin Soomaalida masaajidadii waxaa laga dhigtay yani mashruuc benefit ah oo yani lacag lagu sameeyo oo qabiil kasta u meel gooniya masaajid gooniya u xidhay. time badan baan maanta waxaan geliyay inaan soo ogaado reasonka nin Soomaaliyeed oo muslim ah oo mindi inta ugu soo qaatay nin Soomaaliyeed oo imaam ah oo masaajidka inta ugu soo galay oo dhigdhigay gelgeliyay يعني iyadoo lagu jiro maalmihii khayrka qabay bisha Arafat. sida darteed horta sidee ayaa arrintan idin bilaabayaa. masaajidkan waxa la yiraahdaa Khalid bin Walid. waxa uu ku yaalaa wadada Lake Street, wuxuu ku dhow yahay moolka Karameel. maqaayadii Cayn Shamsi meeshay ahaan jirtay kor masaajidka ku yaala weeye marka Karameel hadda dhinaca baawurtu ka soo baxdo loo sameeyo waa marka la galayo weeye. baawurtu ay ka soo baxayaan marka Karameel jeerasa loo galayo. wadaadka masaajidkaas oo masaajidadii Soomaaliyeed waxay noqdeen mashruuc dad gaara u xiran oo kooxo ama qabiil ah ama gurubaysa ay dhaqaalaha ku gurtaan. run ahaantii yaan oran Cabdi Xakiin yani masaajid buu weerarayaa ama hadal oranaya yani xaqiiqada pointiga xaqiiqada ah ayaynu rabnaa inaynu ka wada hadalno oo aynu isla fahanno. masaajidkani barakale ayuu dheeraa masaajidada kale run ahaantii. masaajidkan sida aad maqasheen hooyo Soomaaliyeed oo la yiraahdo Barni gabar yar oo 8 jir ay dhashay degan guryaha Karameel ka soo horjeeda. gabadhii waxaa faraxumeeyay ninkii ay 3 caruur u dhashay. 2021 ayay arrintu dhacday. waxaan rabaa inaan idin kala faahfaahiyo arrinta oo aad fariisataan. 2021 ayay dhacday. ninkii waa la qabtay, damiin baa lagu soo daayay, ganacsato Soomaaliyeed baa bixiyay, masaajidkaas laga taageeray. waxyaalo badan ayaa goobtaas masaajidkaas ka dhacay. adigu kiiskii wuxuu soo jiitay ninkii damiin baa lagu soo daayay, wuu fakaday, waa la soo qabtay, waa la xiray, damiin kale lagu soo daayay, lawyer qaali ah loo qabtay. intiina idaawaneysay dadka Soomaaliyeed oo maalintii dhaweyd idaawaneysay ee maxkamaddu jirtay raggii la socday ninkaas ee maxkamadda u soo raacay waxay ahaayeen niman masaajidkaas ku xiran.
waxaan maanta rabaa inaan idin kala dhigdhigo masaajidkani muxuu qabanay arintaas muxuu ka lahaa waxaa dhacday hooyada barni la yiraahdo oo ooyasa oo ilmeynaysa markii aan arkay masaajidkaas inta la istaagay ayaa laga habaa oo waxa la yiri ilaahay oo masiibo ku rid naagtaas waa fidno waka maysan hubsanin ninkani waxaan ma sameeyay mise ma sameeynin ilaahay subxaanahu wa tacaala waa qafuur raxiim waa arxamur raaximiin keeskii wuxuu socdo ninkuna masaajidkaas ayuu ku tukan jiray dadkii masaajidkaas joogay oo dhan waxa ay xagliyeen oo dulmiyeen hooyadaas Soomaaliyeed barni hadalka inaad dhuuxdaan baan rabaa Soomaaliya dhagihiina hadalku inuu si fiican u galaan rabaa waxa ay dulmiyeen hooyadaas heer waxa la gaaray salaadii jamaca inta la istaago masaajidkaas laga habaaro sababtoo ah ninka barta ku tukan jiray oo ku xidhnaa okay maxkamadii waxay socotaba bishii hore waatii ay dhacday jury trialkii ee jurida 12 qof waatii loo fariisiyay waatii maxkamadii usbuuc ay socotay waatii gabadha yareed la wareystay waatii la wareystay booliskii maalinta la wacay waatii dhakhaatiirtii la keenay waatii DNA-gii la keenay waatii wax walba oo ninkaasi uu sameeyay qoladii qaabilsaneed la wareystay 2 saacadood iyo ban ayaa gabadha yar isla jirka ay boolisku wareysanayeen ay juuridu wareysanay oo su'aalaha la weydiinay oo xaakimadu ay wareysanayeen oo looyaradu wareysanayeen say iskaga celisayna ilaahay baa ogaa iyo intii joogtay 3 oday oo Soomaaliya oo kamid ah dadkii masaajidkaas ku xidhnaa maxkamadii bay yimaadeen marxaati beenaale ayay u yimaadeen way soo fariisteen waan idin soo duuba waa idin keen anoo wadaan idin keen waliba iyagii baan ku yiri ilaahay miyadan ka baqayn maxaad marxaati ku furaysaa farbaan idin taagaya hadaba hadal baan rabaa inaan idin xusuusiyo odayaashii mid kamid ah markii juuridii wareysanaysay la weydiinayay su'aalaha looyaradii ayaa la yiri ma taqaanaa ninka xagee degantay wuxuu yiri waxaan deganahay 4 floor isaguna xaguu degan isaguna 3 floor okay ninkan ma taqaanaa bal yaha goomnaad baratay 2016kii okay xagee isku barateen gurigan wada deganaa anu 4 kan degan uu yiri isaguna 3 haye ilmihiisu markuu dhashay habeen anaa soo qaaday okay xagee kala isku arteen masaajidkan ku wada tukanaa jimcayaasha iyo salaada subaxda okay hadalkii markii laga dhameeyay waa odaygii ila dagaalamayaan doobay yaa waxa lagu yiri ma maqashay in ninkani uu gabar yar uu adeer u yahay uu taabtay wuxuu yiri maya weligaa maad maqlin miya maya goormaa kugu horeysay wuxuu yiri maanta halkan aan imi ilaahay ku dhashay macquul mata idinka idin dhiibay markanu yani looyradii weydiinayeen madaxay qabsadeen jaajkii baa xanaaqay halkan igu horeysay ku yahay beentaas been ka weyn ma garan kartaa okay maxaad meesha ku timaadeen baa liiday kulligood la wada weydiin نفي عم بوها أهل الصلاة بوها وذات بوها مساجد كان سكوت كنا وإذا صار عنا صلاة الصبح ما كنت كنا جمعة كنت كنا كان كنت كنا ما أنا مقلين بوداين وحسن ساء أيام مقلي إلا قريبة بود الدقين ريزن كورقة مركز الوصل أليس حتى أقول إنه ينادي نكان واحد عن مقلي مركز ورقة الله يصوتر معقول تسمع معقول وواحد عقلي جل عقلي السليم كله قادم كره قالت وياه سؤالها قالت كويدينيا marka maxkamad ay jirto looyaradu ama dadka broskuler ku weydiinayo waxa weeyaan waa qaar kugu marxaati furaya waa qaar ku marxaati furaya qofkan againstiga aad ku tahay ama witnesska aad u tahay waa lagu qasay odayaashii waa duub odayaashii markaan duubay masaajidka ku xinaayeen masaajidkaas waxa masaajidkaas dulmi aad u badan ayuu hooyadaas u geystay ظلمي آذو بدن أيوك السهر وحال لقارة انت الاستاغ لغا هبارو هلقا عبد عكينا هان ولقا يالله يرنبا كما قبر مرا بغن وحان كقبضا مجر ترنتو إيضا عبدا نتاقف كغرفتا ظلمي وقبضنا هو إذا لوغيس مساج كاسا لوغيس محا كان الريزن هو يتصوم عليها والمهدي وحال لقو السمي إلا يرادو
إلهي يوم مصيبة كوري لهبارو حرام وحرام حرام ويا والظلم أرنتي مركي هبكا مرسي waxaa meeshii ka dhacday in ninkii la yiri galti bisha July bay ahayd 21keeda in loo xisaabiyo sanadadii la xiri lahaa 2 county baa lagu dhiftay mid kalena waa u dhiman yahay waxaa la soo saaray boonooyinkii filimaantii boonada ahaa uu telefoonkiisa ka search gareeyay waxaa la keenay DNA America qofna galka la iskama dhaho ninka waa ogtihiin dadkii Soomaaliyeed culimada maanta sheeganaya ninka difaacayo maxaa maanta maydhay markii ninkii galti leeyay ma dhici karto ma la samayn karo baba waliba la habaarayo hooyada okay horta masaajidku waa masaajidkaas imaamka maanta la dilay tooreyda la dhacay yaa la dhacay magaal baa la dhacay magaal baa la dhacay mise waxa la dhacay ii sheeg nin Soomaaliyeed oo muslina ما واحد لدى عنين صوماليات بالوذله أو بناك كيمي ما واحد لدى عنين صوماليات مساجد كنت كنيه أو إياك كم ذها يسافر فريس إمام كواحد ما أنت من دي لدى نين مساجد كنت كنجري نين إياك كم ذها محل اسكتي محل ماشي كدعي نين كوا قلمة إمام كوا قلمة بود أما قرحة بود أما قرحة iyadoo cabban dhahda kaga dhufanaya iimaanku waa qolama iimaanku wuxuu ahaa nin ogaadeena ayuu iimaanku ahaa ninka dilay ee tooreyda la dhacay ma gaangis buu ahaa ma dadka balwadale buu ahaa ma wadaad buu ahaa muxuu ahaa wuxuu ahaa raggii masaajidka ku xidhnaa wuxuu ahaa nin habar gidira oo saleebaan nin habar gidira oo Saleeman muxuu ku dilay wuxuu ku dilay saan idin sheegay masaajidada mashruuc lacageed ayaa ka socda mashruuc lacageed oo lacag urursi iyo qabiileys iyo dulmi ayay badidoodu sameeyaan wax kale ka daran baan idin soo wadaa next week madax idin qarxayo marka caruur yar yar oo Soomaaliyeed oo daadoodu 18 ama 20 tahay idin waramaan ahaan waa nala ku shaqaysanay waxaas nagu dhacay waxa yagi xoog yagi aan maalaneen nalama siin ragii waxa sameeyeen waxay qaateen lacag 7 milyan 8 milyan oo dollar maalintaas aad madax qabsan doontaa ninka imaamka dilay imaamku nin ogaadeen waxa masaajidka tujinay ninkuna wuxuu kamid ahaa ninkii dadka masaajidka ku tukanayay waa nin habar gidira oo Saleebaan arintu waxay ka bilaabatay ninkani maalin walba wuu istaaga sadaqooyin buu gurtaa مشروع بوكينا دبا باهم بودها دبا يعني وحبو كينا هير وحو قاري لعبتي مساجد اللي قريي مالمها كلا اللي قريي إنو قاطو odayaal marka isaga beeshoodii ayaa loo gudbiyay meesha waxa ku tukado ugu badan odayaal habar gidira waa loo gudbiyay si fiican bay yeeleen waxay dhaheen warniyo masaajidkan dhibaatada ka daa oo maalin walba dhibkan aad haysid jooji wudi salaad kasta waa ka cayal lacag ururinaya xaq mashruuc keenaya dhibaato sameynaya waadiid waa la qabtay transfers baa la geliyay imaamkii markuu u dul qaadan waayay dhibaatadiisii tolkiina uu gudbiyay tolkiina uu qabsoomi waayay ila Soomaalidu waa qabiil moogta tolkiina uu qabsoomi waayay imaamkii wuxuu sameeyay wuxuu galay transfers markuu galiyo ogaado inuu ninkan transfers ku jiro يوم ما أنت الساعات الظهر كور سوق التوري نشتو كجسار ملول بواكجلي ملول بواكجلي دوا ولا دوا نسي واكنا ملفق بهك الدنيا كده ملفق بهك يا أخي مركو أدو القادم وعي يبقى ملفق حق الدنيا كمان تدريسي تركي وقفي مانتاج كان هو يداس المها لقاك في الصدي والله بالله تعالى داودو ازدج صاحب كعليه
masaajidkan hooyadaas ilmaha laga kufsaday waa laga habaara loo dhigdhiga ilaahayow masiibo ku rid ilaahayow kan ku rid maysan oranin war ninkani waxaan ma sameeyey waa qabtay heer waxaa la gaaray maalintii dambe ninkii la qabto oo la xukumo oo dembigii lagu soo helay masaajidada markaa Minneapolis haddaa aragtaan imaam la torreeyey ama aragtaan imaam la dilay ama aragtaan imaam kala dilay diin iskumay dilin dhaqaalaha la isku dilaya marka waxaan arrinta qabiilka aan idinku sheegay Soomaalidu qabiilka isku aqoonsadaan imaamku ogaadeen buu ahaa ninka wax dilayna waa habar gidir waa Saleemaan arintuna transbaaskaasay ka dhalatay ninkaana masaajidka naftu u keena dhaqaalu guranaaye daawud yaro saaxiib hash inaga baandhay qabiilka inaga baandhay ninkii sadaqooyinka guran jiray meesha joogay buu ahaa saaxiib hash inaga baandhay daawudo yaanay ku qaadin dawladda xamar ma joogno dawladda xamar waa dhacday farmaajo waa tagay xasan sheekh waa madaxweyne ka ah waa ku ogay inaad xagjir aad u xun adahay markaa jooji ninkaani ninkii lacagta guri jiray buu ahaa reasonka lagu siiyey transbaaskana waxay ahayd maalin walba sadaqa guri jiray xeer wuxuu gaaray uu sanduuqii masaajidka yaalay uu dhaco ma waxaa diidaysaa in transbaas laga geli ma waxaa diidaysaa inuu maalin walba ku tukan jiray ayuub daawud baasha saaxiib iga dhig dowladdii waa dhacday halkan waxaa laga hadlayaa Minneapolis wixii ka dhacay markaa Soomaaliya arrintaas kiiskaasi maanta saas ku dhacay dee waa kaasa xaaladdu maanta waxa weeyaan waa imaam ogaadeena oo magaalada uu ku tooreeyay nin habar gidir oo Saleemaan wabillahi tawfiiq waa isku dhamaatay inagu kala kaxay